السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibayaal qaybteennii hore waxay noogu joogtay inuu hoolaag soo faray wasiirkii khaayinka ahaa ee lagu magacaabi jiray mu'ayidiin calqami inuu madaxweynaha dowladda ku qanciyo inuu yareeyo ciidamadan badan oo uu miisaaniyadoodana yareeyo. qaybteennan maanta waxaynu ka qaadaynaa waxay khilaafadii bilowday inay dhinto miisaaniyaddii ciidamada, haddana waxay yaraysay tiradii ciidamada ilaa uu noqday ciidankii baqdaad ee muslimka ahaa ee tiradiisu ahayd 100 kun oo dagaalyahan. wakhtigii muntasir bilaah waa muctasim bilaah aabihii oo ku beegnayd 640 hijriga, halka ay imika yihiin wax aan ka badnayn 10 kun oo dagaalyahan oo kaliya waana sanadkii 654 hijriga. waxaa hoos u dhac aad u weyn ku yimi ciidamadii khilaafada. intaas oo kaliya maahee waxaa ku habsaday ciidamadii dhaqaale la'aan aad u daran iyo dayac gaadhsiiyey heer ay dadka suuqyada jooga shaxadi jireen. sidoo kale waxaa meesha ka baxday wixii la odhan jiray tababar. ciidankii dalka gebi ahaantiisba mid sarreeya iyo mid hooseeyaba, gaashaanle, sarkaal, alifle, mid lahaa awood hogaamineed, mid lahaa qorshayn iyo maamul wanaagsan waa la ilaaway. sidoo kale muslimiintu waxay ilaaween fanniyadii dagaalka. waxaa kale oo maskaxdooda ka baxday qiimihii uu jihaadku lahaa. wuxuu aqbalay khaliifkii muctasim bilaah waxaan oo bahdilaad ah. wuxuu ahaa mid mooganaantiisu badan tahay. maskaxdiisna waxaa ka baxday inuu madaxweyne ahaa iyo in waajibaad buuxa ka saaran yahay ilaalinta nabadgelyada dadkiisa iyo dalkiisaba, iyo inuu dalkiisa ka difaaco cadow kasta oo ku soo duula, kana feejignaado qabsashada dhulkiisa uu cadow gacan galo, iyo inuu dadaalkiisa ugu badan ku bixiyo xoojinta ciidamada dalka iyo hubeyntooda, iyo inuu dhammaan dhiirigeliyo dadka rayidka ah. waxa uu awoodayey inuu bulshada iyo ciidamadaba jeclaysiyo jihaadka dar ilaahay loo dagaalamayo. ma uu samaynin muctasim bilaah arrimahaasoo dhan, kumana cudur daarayno, waayo wuxuu haystay xukun iyo awood. hadduu amar bixiyana uu gaadhi karayo go'aanka uu doono. laakiin haddii qofka shakhsiyaddiisa iyo iimaankiisu tamar darrayso, ma gaadhi karo go'aanno fiican oo wax ku ool ah. dhanka kale waxaa mudan inaynu isdul taagno muxuu sameeyey hoolaag sanadkii 654 hijriga. arrimaha uu qabtay hoolaag sanadkan waxaa ka mid ahaa: 1. dhammaan waddooyinka isku xidha Shiinaha iyo Ciraaq waxa uu ka dhigay kuwo u diyaar ah inay soo maraan ciidamo faradhaaf ah oo tataariyiin ah, waxaana la dhisay biriijyo waaweyn oo laga gudbiyo alaabooyinka culculus. waxaa laga nadiifiyey waddooyinkan waaweyn iyo wadiiqooyinkaba dhammaan xayawaanka dabjoog iyo duurjoogba si ay u daaqaan fardaha tataarku. 2. waxay gacanta ku dhigeen dhammaan dhulalkii ku hareeraysnaa waddooyinka Ciraaq ilaa Shiinaha si ay ciidamadu nabadgelyo ugu maraan iyo dhexmarka dhulalkan aadka u ballaadhan. 3. waxaa gaadhay hoolaako wararta fatiran oo ku saabsan Ciraaq iyo dhulkeeda, dhufaysyada Baqdaad, tirada ciidamada cabbaasiyiinta iyo awooddooda dagaal. waxa kale oo ogaa waxa ay dhaqaale haystaan. waxa kale oo ka war helay meelaha ay u jilicsan yihiin iyo meelaha ay u adag yihiin, iyo dhammaan magacyada dadka ay isbeddelladan saamayn ku yeelan doonaan dhacdadan kadib, iyo guud ahaan wararka shicibka iyo sida ay niyaddoodu tahay, waxa ay doonayaan iyo waxyaabaha ay madaxdooda kaga soo horjeedaan. dhammaan macluumaadka waxaa soo gaadhsiiyey basaasiin iyo dad uu ku dhex beertay muslimiinta dhexdooda, iyo qaar dabadhilifyo ah oo gaadhsiisan ilaa heer wasiirro. 4. waxay tataarku la galeen heshiisyo waddamada kale ah Armenia, Georgia iyo Andakiya, waxayna ballan ku qaadeen inay ka caawin doonaan dhinaca dagaalka iyo inay wararka u soo gaadhsiin doonaan si hagar la'aan ah. 5. wuxuu dhammaystiray midaynta madaxda Yurubta galbeed. midayntaasina wejigeedii hore ma ahayn siyaasad, waxayse ahayd mid uu ugu yeedhay midaynta ra'yiga iyo hubka. 6. kadib waxa uu heshiis la galay madaxda muslimiinta ee galbeedka iyo waqooyiga Ciraaq, waa Turkiga iyo Suuriya, wuxuuna heshiis kula galay inay bixinayaan nabadgelyo dhammaystiran iyo inay gacan siin doonaan iyagoo aan wax shuruud ah ku xidhin hoolaako. haddaba marka uu dagaalka Baqdaad ku jiro. sidoo kale waxaa nasiib darro ah in madaxdan inta ugu badan ay ka soo jeedeen Salaaxudiin al-Ayuubi, ilaahay u naxariistee. 7. waxa uu hubsaday hoolaako inay niyad ahaan u jabeen dadkii muslimiinta ah reer Ciraaq. 8. waxa uu hoolaako la samaystay heshiis aad u adag wasiirkii koowaad ee dowladda waa mu'ayidiin al-calqami, wuxuuna u ballan qaaday inuu si buuxda xilka ugu wareejin doono waa xilka khilaafada. 9. wuxuu xaqiiqsaday hoolaako tamardarrada ciidanka cabbaasiyiinta iyo xeelad yaridooda. marka waxa uu soo baxday in aanay naftooda difaaci karin iska daa inay Baqdaad difaacaan. 10. hoolaako waxa uu la socday dhammaan dhaqdhaqaaqa muctasim bilaah, xogaha khilaafada muslimiinta iyo saadkeedaba, awooddeeda iyo itaalkeedaba. dhammaan arrimahani waxay u soo gabagaboobeen hoolaako sanadkii 654 hijriga. haddaba kadib diyaargarowga 5 sano ah waxa uu muuqday hoolaako jawi iyo cimilo sheegaysa in dagaal lagu qaadi karo Ciraaq. waxa uu bilaabay hoolaako inuu soo dhaqaajiyo ciidankiisii faraha badnaa, isla markaana ciidankii ugu badnaa ilaa iyo intii dowladda tataarka la aasaasay. waxaa jira ciidamo gaara oo loo watay godoominta Baqdaad. kuwaas loo watay godoominta waxaa lagu sheegay 200 oo kun oo askari, marka laga tago ciidamada ilaahay uun garan karo tiradooda ee lagu eekeysay waqooyiga iyo bariga Ciraaq. waxa dheer ciidamada lagu talagalay inay ilaaliyaan waddooyinka ciidanku marayo, amnigana sugaan. waa marka aan la tirin ciidamada ilaalada ah
iyo kuwa lagu talagalay horbaxanyaha waxay ciidanka isku hagaajiyeen oo ay u dagaal galeen sidan. 1. wuxuu magacaabay Hoolaaka ciidan kale oo fadhigiisu ahaa webiga Alfolga ee Raashiya, kuwaas oo uu hogaaminayay dagaalyahankii caanka ah ee Baato. laakiin wakhtigan Baato meesha ma joogee waxa uu soo diray 3 wiil oo uu walaalkii dhalay. Baato iyo qoyskiisu waxay degganaayeen gobolka webiga Folga, waxayna isku bixiyeen qoyskii dahabka ahaa. qoys nasab sare sheegta ayay ka soo jeedaan, iminkana ku daba fayla boqorka guud ee Monoko Khan. 2. ciidan kale oo ay xaruntiisu ahayd Anadol ayuu cid u diray Hoolaako. way yimaadeen iyaga oo wata hogaamiyahoodii weynaa ee reer Mongolia lana odhan jiray Biijo, iyaga oo soo dhambalay Turkiga iyo waqooyiga Ciraaq, isla markaana ku jihaysan Baqdaad. lamana kulmin haba yaraatay wax iska caabin ah intii ay ku soo jireen socdaalkaas dheer, sababtuna waa hogaamiyayaashii dhulalka muslimiinta ka talinayay waxay heshiis la galeen Tataar. heshiiskaas oo ahaa isma daarno. markaas ay nabadgelyo u mareen Tataar wadamada kale ah Anadol, Mawsil, Xalab iyo Ximsaba. 3. waxa uu cid u diray Hoolaaka saaxiibkiisa siyaasadda ee Armeniya haystay, isagoo laftiisu watay ciidamadii dalkiisa. 4. wuxuu kale oo ka dalbaday boqorkii Georgia inuu u soo diro ciidamo ka kaalmeeya godoominta Ciraaq si dhaqso ah ay uga jawaabeen dalabkaas reer Georgia. 5. waxa uu magacaabay Hoolaako 1,000 askari oo warmoolay ah oo ku caanbaxday shiishka iyo leebka. 6. waxa uu ciidankiisii ugu wanaagsanaa u dhiibay hogaamiyaashiisa kuwa ugu wanaagsanaa, waxaana ka mid ahaa Katbuqa oo ay aad u sarreysay khibradda uu leeyahay dagaalada, isla markaana Nasraani ahaa. sidaa darteed waxa uu awoodaa inuu xidhiir la sameeyo oo uu yeedho ciidamo aad u badan oo Nasaare ah, isla markaana dagaalka la qayb qaata. sidaa darteed waxa uu isu keenay Hoolaako ciidamo safafkoodu gaadhayaan ilaa 30 saf oo kala dambeeya, safkii walbana uu yahay tiro sare u dhaafisa 10,000 oo askari. waxay ahaayeen ciidamadii ugu khatarsanaa ee ay Tataarku yeeshaan ee la arko taariikhda, waxaana hogaaminayay 3 hogaamiye kale ah Hoolaako, Katbuqa iyo Biijo. 7. waxa uu Hoolaako cid u diray madaxweynaha Daakiya ee Buhmaan, laakiin uu ka cudur daartay Buhmaan inuu soo cideeyo Shaam oo aado Ciraaq, laakiin si buuxda ayuu ugu diyaar garoobay dagaal si marka Baqdaad looga takhaluso uga qayb galo riditaanka Shaam. 8. Naasir Yuusuf waa gudoomiyihii Dimashq, waxa uu u diray inankiisii si uu uga mid noqdo ciidamada Hoolaako. 9. gudoomiyihii Mawsil waa Badruddin Lulu, waxa uu diray ciidan xoojiya ciidamada Tataarka. waa kuwaas Tataarka oo muslimiin la dagaal galayso si loola dagaalamo muslimiin, waxayna dagaalka ugu jiraan howlgal la magac baxay xoreynta Ciraaq. Ciraaqiyiin ayaa la safan Tataarka. Ciraaqiyiintu wax kasta waxay dhaafsadeen kursigaas. diyaargarowgan maqaamkiisu liita ayaa u dhammaystirmay Tataar. waxay Tataarka ka soo gurgurteen dhinaca galbeed ee Faris. Hoolaakana waxa uu diyaarsay kaartadiisii dagaal. markii uu diyaargaroobay Hoolaako waxa uu ka fekeray in kooxda la yidhaahdo Ismaaciiliya ee Shiicada ahi ay khatar ku tahay Tataarka iyo howlgalladooda, xaruntoodana tahay galbeedka Faris iyo bariga Ciraaq. kooxdan waxay caan ku tahay tababarro heerkoodu sarreeyo iyo dhufaysyo aad u adag. kooxdan waa kuwa aan ballan iyo axdi midna lahayn. Tataarkuna way ogyihiin in kooxdan khilaaf daba dheeraaday ka dhexeeya Cabbaasiyiinta iyo wixii Sunni sheegtaba, waayo mar hore ayay warqad u soo direen Tataarka ay kaga warramayaan taaldarrida Jalaaludiin Khawaarzim Shaah intaan la dilin ka hor sanadkii 629 hijriga. waa munaafiqiin had iyo jeer kabaqaad u ah cidda awood badan. Tataarku ay aamini waayeen inay u dhaqaajiyaan ciidamadooda dhinacaasi Ciraaq oo ay dhabarkooda kaga tagaan ciidamada Ismaaciiliya. waxaa intaas dheer aanay raagtay oo u dhaxaysa Tataarka iyo Ismaaciiliya. kooxda Ismaaciiliya waxay dileen wiil uu dhalay Genghis Khan oo la odhan jiray Jigtay. waa markii uu Genghis Khan duulaamada ku hayay Faris, waa muddo 30 sano ka hor ahayd. aanadaas ma ilaawin Tataar, waayo aanadan waxaa laga galay hogaamiyaha aasaasay dowladooda, waa kii ka dhigay inay noqoto dowladda ugu awood badan adduunka. sidoo kale hogaamiyayaasha Tataar oo dhami waxay qaraabo wada yihiin ama ka soo jeedaan qoyskii Genghis Khan. arrintan ka dhaxaysa iyaga iyo Ismaaciiliya waxay u arkaan arrin gaar ah oo qoyskooda laga galay. xataa waxay ahaayeen ciidamada Tataarku marka ay dagaalka ku jiraan kuwa ku dhawaaqa magaca Jigtay si ay xamaasad ugu kordhiso dagaalkana u helciso, loona xasuusto in loo arguday inuu mudan yahay. arrimahaasoo dhan markii laisla eegay waxaa gebagabadii go'aan lagu gaadhay in horta Ismaaciiliya cagta la mariyo, waxaana ay amaradan ka soo fuleen caasimadii Qaraaqoon ee ku taallay Mongolia. amaradaas oo ahaa ciribgoynta Ismaaciiliya. waxay ciidamadii Tataar ku soo dhaqaaqeen buuraleydii ay kooxdan Ismaaciiliya deganayd, waxayna u soo dhowaadeen dhufaysyadooda kii ugu awoodda badnaa. waa dhufayskii la odhan jiray dhufayska geerida. waxaan ka badnayn maalmo yar markii uu dagaalku socday ayaa la furtay dhufayskii. markii uu hogaamiyihii Ismaaciiliya oo lagu magacaabo Ruknuddin Koorshaah oo arkay ciidamada ku soo wajahan inaanu weligii arag wax la mid ah, ayadani ku khasabtay inuu toos u wajaho ciidamada Tataarka, dagaal toosana uu la galo. fooda ayay isdareen Hoolaaka iyo Ruknuddin Koorshaah. ciidamadii Ismaaciiliya kulligood waa la laayay, hogaamiyahoodii Ruknuddin Koorshaah isna waa la qabtay. waxaa la amray in loo diro Monoko Khan wadahadalna dhex maro labada hogaamiye. waa la qaaday Ruknuddin inta la raaciyay koox Tataariyiin ah
laakiin Manako Khan wuu diiday inuu la kulmo aadna wuu xaqiray isagoo leh Holaku wuu khaldamay. Wuxuuna ku khaldamay inuu fardaha qaaliga ah ee Tataarka safarkaas dheer soo geliyo iyagoo sida kan xun ee aadka u liita. Kadibna waxa uu ciidamadiisa ku amray in ninkan lagu celiyo meeshii laga keenay. waxa uu amray Manako Khan in wadada lagu sii dilo intaan loo geyn Holaku. wadadaasna waa in ay ka baxsanaataa wadankiisa Mongolia si aanay sumcad xumo ugu soo jiidin. markii la dilay Ruknuddin Korshaah warkiina uu soo gaaray Holaku ayuu sameeyay khiyaamo aad u xun aadna uga fikray Holaku. khiyaamadaasi waxa ay ahayd iyo sida uu ninka faasidka yeelayba waxaynu kaga bogan doonaa fiidiyogeena kan xiga saaxiibayaal. qaybteena maanta halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa.